kulanti wanaagsan walaalaha Soomaaliyeed dhamaantiinba waa idin salaamay waxaan ku salaamay magaca sayidkeena iyo badbaadiyana Ciise Masiix soo dhawaada dhamaantiinba ku soo dhawaada jidka jannada waan igu aashina gaabo oo idin wada mowduuc wanaagsan oo ku saabsan ilaaha masiixiinta ay caabudaan iyo kan muslimiinta ay caabudaan isku mid baa taasaan ka wada hadlaynaa waqtigan wanaagsan aan isla joogno waan noo duceynayaa marka hore kadib ayaan guda galaynaa mowduucena أبو قدوس أبو هذا محله ربي هذا كان مهدي عنا وقتي ونكسر ربي نجرنسي وحب هذه قارتي نجرنا ربي ندخل البيت النور يسمى وكان وحيد رجدي يستاهل آمين يا سؤال ولا ولا عندنا دمانتين بقى مرلبات وحنقد وفرح سنة إن أنا عندنا اسم خلني يكون تدا ونكسر في عن وأنا كم هاد علينا مركورة حرير كان الذين إنسان ولا سعتان أو ولا سعتان جد كجنة أدبر كم هاد علينا ربي حيد بركة دمانتين ما لا يهاي سي وضع أو سي بديع مارت حرير كان الذين إياه ووضع سعت كان ولا سعتان سيا وحياة بدن أو وقتان مسيحيين توحيين موضوعا ونكسن وحواء وحكيمة سؤال نرسو سؤالي ولله إله مسلم كأي عبدان إله مسيحيين كأي عبدان اسكم متبع مركا تاسان اسمه بردقنا كدبنا نعدينا إن اسكم مديهين أم اسكم مدهين waxaan soo qaadan doonaa aan kaga hadli doonaa arrimo badan qaybo saddex qayb oo isku xiran oo ku saabsan caabudaadda ay masiixiinta ay caabudaan ilaahooda kan uu yahay iyo siday ku caabudaan iyo maarata astaamaha ilaah iyo waxaan kasii hadlaynaa rabitaanka ilaah waxyaabaha uu yahay marka saan wada ognahay dhammaanteenba ilaah waa mid waa ilaaha xoog badan waa ilaaha awooddiisa iyo xooggiisa ku sameeyey wax walbaba oo dunida yaala dunida ku dhex jira iyo wax walba cirka aan ka aragno iyo wax cirka saarano dhanba waa ilaah xikmad weyn leh xikmadiisana aan la soo koobi karin cid gaari ka tahay aysan jirin ilaaha asaas u weyn oo midka ah oo na abuuray ayaan ka hadlaynaa laakiin caabudaadda ilaah la caabudaayo ayaa lagu kala duwan yahay ilaah waa kee marka ilaah sida adiga ku yahay adaa yaqaana laakiin aniga waxaan aad u sharaxayaa kan aan anaga caabudno adaan nahay masiixiyiin sida uu yahay iyo qaabka uu yahay kadibna waxaan barbar dhigaynaa kan muslimka ay caabudaan markaan isku fiirinayna inay isku mid yihiin iyo in kale waxna soo cadaan doonaan waa inoo soo bixi doonaan maxsuulkuna noo soo bixi doonaan annaga haddaan nahay masiixiyiin waxaan aaminsanahay in ciise masiix uu yahay rabbigeena iyo badbaadiyaheena waana sidaa qof walba oo masiixi aaminsan waa inuu rumaystaa in ciise masiix uu yahay rabbigiisa iyo badbaadiyihiisa waa sidaa sababta qofka u wataba magaca masiixa oo u wato ama qaarka ingilishka yaqaana ay yirahdaan christian waa Christus ama Christ maarta magaciisa ay wataan way waxa loogu magac darayaa kii ayaga ay rumaysteen marka sa aniga aan aaminsanahay Ciise Masiix waa erigi ilaah ay jir noqday oo dhex imaaday kadibna maarta isku talaabada tagay nasidiisa noo bixiyay dhimashada ka sar ka camaan saddexaad kadibna maartay samada aaday astaamahaas isku xiran dhan iyo maartay waxaan aan hadda soo sheego dhanba waa inuu rumaystaa qof walba masiixi ah waa inuu rumaystaa nolosha Ciise Masiix dhimashadiisa saraakiicidiisa iyo inuu kor aaday inuu rumaysto markaas wuxuu noqonayaa qof maartay rumaystay Ciise Masiix rumaystay marka masiixiinta haddaan nahay anigana aan kamid ah masiixiinta waxaan aaminsanahay in Ciise Masiix uu yahay rabbi iyo badbaadiye waxaan sababta u aaminsanahay waxay tahay waa sida kitaabka noogu qoran kitaabkeena wuxuu leeyahay Roma cutubkiisa 10 aayadda 8 ilaa 9 waxay leedahay laakiin maxay leedahay ereygii waa ku dhow yahay waana kan ku jira afkaaga iyo qalbigaaga waxa weeyaan ereyga rumaysadka oo aynu kugu wacdino maxaa yeelay haddaad af ka qiratid in ciise yahay rabbiga oo aad qalbiga ka rumaystay in ilaahay ka sarkicii ku dhintay waad badbaadi doontaa badbaadinta masiixiinta ay helaan dhanba waxay ku imaatay rumaysa ay rumaysan ciise masiix inuu yahay rabbigooda iyo badbaadiyooda marka haddaan nahay masiixiintaasaan rumaysanahay laakiin muslimka hadda uma rumaysna taas muslimka uma rumaysna ciise masiix inuu yahay badbaadiye inuu yahay rabbi uma rumaysna waxay aaminsan yihiin oo keliya inuu yahay adoon inuu yahay nebi inuu sidan yahay laakiin annaga wuxuu inuu yahay rabbi iyo badbaadiye haddaba ilaah aniga aan rumaysanahay oo aan caabudo iyo kan muslimka ay caabudaan markaas isku fiiriso isku mid baa tani waxay caddaynaysaa inaysan isku mid ahayn waayo qofka muslimka ma ogolo in ciise masiix uu yahay rabbigiisa iyo badbaadiyihiisa aniga iyo masiixiinta waxaan aaminsanahay in ciise masiix uu yahay rabbigeena iyo badbaadiyaheena taas oo kula duwanahay sidaa ha ahaato waxaan kaloo annaga aan aaminsanahay haddaan nahay masiixiyiin waxa la yiraahdaa trinity ama saddexnimada ilaah muslimkana markay ay maqlaan trinity waxa qalbigooda kusoo dhacay saddex ilaah ayaa qalbigooda kusoo dhacay anigana oo masiixi ah hadda oo hadla masiixiinta waxaan idin cadeynayaa inaynan aaminsaneen saddex ilaah laakiin aan aaminsan hal ilaah oo isku muujiyay saddex qaab aragta
saddexda qaab hadaba maxay tahay waa ilaha aabaha ah waa ilaha ruuxa ah waa ilaha wiilka ah ilaha ruux ilaha aabaha ah ilaha wiilka ilaha ruuxa quduuska intaas ay isku muujiyaan muxuu saa u sameeyna oo anaga saas uu kala bixin isugu kala bixi san uu ogeysiyo anagana uu ogaano kan ilaahina uu yahay inuu nala hadlo inuu awood badan yahay inuu asaga yahay kana maamulo oo xoog leh oo wax walba noo qabto inuu yahay habkaas ku kala garanayna marka ilaahina waxyaabaha uu naga dhex qabanayo sidaas ayaa ilaah isugu kala muujiyay marka taasina waxay noogu qortaa kitaabkeena kitaabka anagana aaminsanahay ee masiixiinta ay aaminsan yihiin bilowgiisii horeba kitaabka tawraadka ayaa waxa ku qoran aayadahan aan idin akhrin doono bilowga cutubkiisa koowaad aayadaha 1 ilaa 3 waxay leedahay bilowgii ilaah samadii dhulka uu abuuray dhulkuna qaab ma lahayn wuu madnaa gudcurna moolkuu dul joogay oo ruuxa ilaahna wuxuu ka dul dhaqdhaqaaqay biyaha ilaah wuxuu yiri iftiin ha ahaado iftiin baana ahaaday markaasa ilaah aabaha ilaah ruuxa quduuska iyo erigi ruuxa waxa waa meeshu joogay erigina waxbaa lagu sameeyay wixii sameeyay asal lagu sameeyay marka anaga ma iska alifanin hadana masiixiin sida noo qoran oo anaga aan aaminsan ayaa sida ah wana sida ilaah waa mid wuxuu isku muujiyay sida saddexdaas qaybood oo weynaantiisa waa xikmadiisa iyo waa hawsh uu naga dhex qabanayo ilaa hadalka anagu una la hadlayo ilaahay oo maraba uu nala hadlo marka sida iyadoo ay tahay ayaa Matayos cutubkiisa 28 aayad 9 waxay leedahay hadaba taga oo qurumaha dhan xirka dhiga oo ku baabtiisa magaca aabaha iyo wiilka iyo ruuxa quduuska magaca aabaha magacyada ma aha waa magaca aabaha wiilka iyo ruuxa quduuska waa iswataan waa hal lagu dhuftaal macnaheeda soo bixida soo baxay waa hal lagu dhuftaal waxay la mid tahay hal ilaha aabaha ilaha wiilka ilaha ruuxa quduuska sidaas ayna lagu baabtiiskana wuxuu yahay marka soo badbaadnay hadaa waxaan badbaadi wuxuu ku timaadaa in afka laga qarto qalbiga laga rumaysto Ciise Masiix inuu yahay rabbiga badbaadiyaha astaantan waxa lagu muujiyaa in qofka la baabtiiso oo biyo la geliyo si wasaqdiisa iyo dambidiisa loo dhaqo oo ula soo sarakaco nolosha oo cusub oo la helayo Ciise Masiix uu la helayo Ciise Masiixna uu qaadanayo oo Masiixna uu ku dhex jiro si uu u helo marka arta anaga waxaan aaminsanahay ilaah Trinity-ga Trinity dadaan aaminsanayn macnaha waxa la mid tahay adiga ilaaha caabudid iyo ilaaha Masiixiinta caabudaan isku mid maaha anaga hadaan Masiixiinahay waan aaminsanahay habkaas ilaah inuu soo kala muujiyay adigana hadii aad maqasho waxa laga yaabaa saddexnimada ilaah ama ilaah aabaha ilaah ruuxa quduuska ilaah wiilka markaa maqasho in saddex ilaah qalbiga ay ku soo dhacayaan sidaan ma aha waa si ka duwan laakiin fahamkaaga ayaa ka duwan fahamka Masiixiinta ay aaminsan yihiin marka labadan qaybood hadaan soo sheegnay waa badbaadi inuu yahay Ciise Masiix rabbiga badbaadiyaha iyo saddexnimada ilaah labadaas waa dii ma artay isku meel soo galaynin waxa ogaataa ilaah ay aaminsan yihiin caabudaan Masiixiinta ilaah ay caabudaan muslimka isku ilaah maaha arinta saddexaad ayadana muhiimka ah aan ku soo qaaday meesha rumaysadka Masiixiinta ama rumaysadkeena waxa weeyaan ilaah inaan ugu yeerno aabe kii walba oo rumaysta Ciise Masiix wuxuu xaq u yeeshay inuu ka mid noqdo caruurta ilaah ما أكو حق جرك كذا شيء لكن واحد جر واحد يرمسك أنا وان قبا أباه جرك أنا وأباه السنة واحد أباه وسيئة أباه نود أبو رأنا قرنبا إله وأباه نود أبو رأي ما كان صار لنا هو حلمته أنرمنا إن أباه يويل كيس أنا قلنا سحرير توصل أو عد سوق الحق اللي كتاه أو عد سحرير توصل أو جعل كل سنة أقولها أباه يعني إله ويرنا مركانا كذا دانا مسيحيين هذا أدي إله أبو ويري كرين وحوجات إله مسيحيين تعبدان إكادي عبد إني سنسكم بداية سنة حين وحنو أخرنا يا كتاب كنا سيدنا أو قرن هدانا مسيحيين سيدا أنا أبو ويرنا إله وايو وحنا أخرنا رومان عتقي سديدات آيات شنة تبنات وايو ما إذا هلين روحا عدون ماذا إناد مركلة تعبستان لكن واحد هشان روحا عرور إذن كدجي كان أبو قيلسان أبو كان أبو قيلنو أبو روح حد إله لفتي كذا يعني بريسا نسينيسا إن إله ويري كرنا أبو هذا هو قاعد عندنا كسوعية أبهنا معها أبها جرك معها كمان إيمانا حق الماضي يحق مارتي يسكتك يحق جرك كما يسمى إيمانا وحق رميستك إله أنا عن رميسنا هاي وكويها وحيابات قاركود إيكو شيئا إله ما مركا قاركود مركا كصاد عضو أبو مركا أنا جنرانو وحي أمسيهن إن إله وناقتي وإلمك علي سيدا معها إله وكويها وحاس إن لقونا مثل إله معها إلهنا أنا وإحنا مرة لما نقدره وإله وحول بأسر وليه أصلا لهذا رميس يوم لهذا ونقدر تكويسه تذكرون هو عروتيسه لكن أبو موضع كله وإيجا ما يسنقرن إنه أبو إيها أسجع أنا قصي وان قرني إنه أسجع يهي أبهن جنة مركا وحنكلوسي آخرنا يا ملك عروتك سلا آيات ونادو حلا ده مين كل جن اسكو أبه هين وعهد جهره سو اسكو إله
inama uumin markaysa uumidan ilaah uuna uumay waa aabaheena jannada kana wada uumay anaga dhanba nebiyadii hore dadkii hore sida ayay usoo ogaayeen in ilaah uu yahay aabahood waa aabaha jannada waa aabaha na wada abuur anaga dhanba waa aabaha wax walba leh laakiin muslimka markay maqlaan aabe waxaa qalbigooda kusoo dhacayo nin iyo naag isku tegay qalbigooda soo gelaayo markaas ilmo dhasheen oo kale sidaa ma aha ilah waa ka nasahan yahay waxyaaba noocaas oo kaleeta ah laakiin ilah asaana lahaaday isagaa na adab garaystay isagaan ku abtirsanaynaa sidaa awooda ayaan waxaan ilaah dhan rahnaa aabo haddaba dhinaca kale haddaan u fiiriyo ilaah adiga aa aaminsan tahay miyaa addoon u tahay mise waxa u tahay saaxiib ilah halkan anaga wuxuu nagu leeyahay inama uusan siinin ruuxadda addoonnimada inaan mar kala cabsano addoommo uma nihi ilah anaga waxaan u nahay saaxiibadiisaan nahay waxaana carruurtiisaan nahay ilah waa u dhow nahay sidaa awoodeed haddii adiga addoon aad tahay annaga waxaan nahay carruurta ilaah sidaa awoodeed waa garanaysaa marka in ilaah adiga caabudid iyo ka masiixiinta annaga ana caabudnaa isku maaha mid maaha way kala duwan yihiin waxaa lagu kala duwan yahay waxay tahay aragtida aan ka qabno ilaah laftigiisa ayaa lagu kala duwan yahay laakiin ilaah magaciisa waa ilaah waana mid waa kan xoogga leh waa kan wax walba abuuray waa kan dunida iyo dhulka dhan wada abuuray cirka iyo wax walba yaala laakiin waxaa loo baahan yahay in la garto kan dhabtaa asaga uu yahay haddaan qaybtaa intaa ugu gudbo waxaan u gudbayaa rabitaanka ilaah waxa uu yahay qof walba bini aadana wuxuu damacsan yahay waxbuu rabaa waa sidaa oo kale ilaahna waxbuu rabaa waxa aad rabtid waa wax ma artay muhiim aad kugu ah oo adiga aad jeceshahay micnaha ilaaheen haddaba annaga wuxuu rabaa dadkiisa oo dhan inay wada badbaadaan kuwa uu wada abuuro dhanba wuxuu rabaa inay wada badbaadaan oo jannadu ay imaadaan waa ilahaas ilaah anagaan cabudno dhanka kale haddaa fiirsa ilaaha ee cabuda muslimka wuxuu leeyahay naarta waxaan ka buuxinayaa jinni iyo insi ayaan ka buuxinayaa annagana ilahayna wuxuu leeyahayna wuxuu leeyahay kulli waxaan rabaa inay wada badbaadaan oo ay gartaan runta waa kan tusaalaha nagu soo qaatay oo yidhi haddaan haysta 99 idaad waa 99 qofe 100% laga hadlayaay mid keliya iga maqan yahay kan keliya maqan ayaan doondoonayaa saa usoo helo wuxuu rabaa dhamaystirnaan inay dadkiisa dhan ku wada dhamaystirnaadaan jannadana wada yimaadaan waa rabitaanka aabaheena jannada waa sida oo kale haddaana anaga masiixiyiin waxaan jecelnahay dadkao dhanba inay ilaah wada gartaan oo jannada wada yimaadaan sidaa oo kale ayaan haddaan ahaa masiixiyiinta soomaaliyeed waxaan jecelnahay in dadkeena soomaaliyed dhanba ilaah ay wada gartaan oo wada rumaystaan si ay u wada badbaadaan dhammaantood jannada aan wada tagno kulligeenaba waa rabitaankeena annagana haddaan nahay masiixiyiin sidaa ayaan idinla jecelnahay walaalaheena muslimka ahow waxaa garataan ilaaha dhabta ah si ilaah jannada ugu timaadaan waana ilaaha jecel idinkoo dhanba inaa wada timaadaan jannada laakiin ma aha kan dhahaayo waxaan ka buuxinayaa naarta jinni insaan ka buuxinaya kan dhahayo maaha sida awoodeed waan aqrinayaa marka hore aayadda aan maarata aan ka hadlaayo kitaabkana sida noogu qoran haddaan nahay masiixiyiin timotheus koowaad cutubkiisa 2 aayadaha 2 ilaa 3 waxay leeyihiin taas waa wanaagsan tahay waana mid ilaahayna badbaadiyeena ah uu ku aqbali karo waayo wuxuu doonayaa in dadka oo dhamo ay badbaado dadka dhamo oo badbaado oo gorto runta dadku dhan inay badbaadaan oo ay gartaan runta ayuu rabaa rabbiga marka ilaah anaga caabudnaa haddaan nahay masiixiyiin waa kaas raba dadka inay badbaadaan haddii ay caabudi ilaah rabo dadka dhan jannaarta inuu kooda buuxiyo haddaba ogaaw adiga ilaaha caabudi kaan anaga caabudno waa kala duwan yihiin isku wadnana ma aha isku aragtina ma aha isku rabitaanna ma aha rabitaankan wanaagsan inaa qaataa fiicnaan lahayd oo ah ilaaha raba inaa adiga aad badbaado oo aad jannada timaado meesha asiga u joogo adna aad la joogtid marka waxa waaye qaybta ugu dambaysana waxay tahay astaanta ilaah maxay tahay haddaba maxaa qalbigaa kusoo dhacay markaan idhahda astaanta ilaahaad anaga astaanta ilaahayna waa astaan la yidhahda jeceyl kitaabkan waxaa ku qoran yoxana cutubkiisa koowaad aayadaha 4 yoxanaha koowaad cutubkiisa 4aad aayad 8 waxay leedahay oo kana aan jeclayn ilaah ma yaqaan waayo ilaah waa jecel ilaah waa jecel ka waran ilaah aslanba jecel ahaba miyuu ku dhibayaa miyuu ku xasdaayaa miyuu ku xumaynayaa waa maya ilaahayna waa ilaahaas shardi la-aan dadkiisa dhan wada jecel haddaba aniga waaga muslimka ah waxaan aaminsanaa ilaah inuu jecel yahay oo keliya marka aniga aan shaqo wanaagsan qabtay iyo howlo wanaagsan aan sameeyo inuu jecel yahay marka asaga u dagaalamayo oo howlihiisa aniga aan ku dagaalamayo uu jecel yahay oo keliya mar kaletana way ka baxsan tahay jecelkiisa laakiin ilaah hadda aniga aan rumaysanayo maca masiixiyadda wuxuu jecel yahay dadkiisa shardi la-aan markuu ku abuurayo wuxuu ku leeyahay waxaan kugu abuurayba jecelaan kuuqaba awoodayaan kuu abuuray balka war markaa yareed oo carruurta ahayd maxaa qabanaysana maxaa u qabanaysay ilaah maxaa isku jeclaysiinaysay waxba asaa gacanta kugu soo hayay asaa kusoo koriyay asaa kusoo weynaysiiyey asaa caqli kugu yeelay asaa waxba hadda haysta ku siiyey kondishin la-aan ayuu intaas kugu sameeyey oona kuu siiyey sida awadeed ilaah anaga aan aaminsanahay jecelkiisa kuma xirna shardi waa jecel aan shardi ku xirnayn sidaa ayuu ku jecel yahay mar walbaba oo haddana kuu jecel yahay laakiin wuxuu necab yahay waa dembiga ka fogaa ha dambaabin isku day inaadan dambaabin
ilaah jaceylkiisa wuu kugu dhamaystiraya mar walbaba ilaah dambigaas adiga samaynaysa oo yunacaya maahane ka adiga aad badan buu kuu jecel yahay kitaabkeena waxaa ku qoran marka mataayos cutubkiisa 5 aayadaha 45 si aad u ahaataan wiilashii aabihiina jannada ku jira waayo qoraxdiisa wuxuu usoo bixiyaa kuwa xun iyo kuwa wanaagsan roobkana wuxuu u da'iyaa kuwa xaqa ah iyo kuwa aan xaq ahaynba kan xaq ah kan xaq ahayn kan wanaagsan iyo kan aan wanaagsanayn markaysaa qoraxdu wuxuu usoo bixiyaa roobku wuxuu siiyaa waxa qofka walbaba uu haysto weeyaan ilaah wuu jecel yahay marka kan xaqa marka jooga iyo kan aan xaq ahayn kan ma artay xun iyo kan fiican ba ilaah wuu jecel yahay wuxuu neceb yahay waa dambiga iyo xumaanta sida awadi ilaah dusaas dadkiisa uu jecel yahay annagana wuxuu leeyahay idinku sidaas ku jeclaada soo anigu idin jeclaaday ilaahina waa ilaah leh astaan jaceelka haddaba ilaahaaga ma yahay ilaah sida ku jecel waqti walbaba dadkiisana u jecel waqti walba jecel hadday tahay maya ilaah anaga ana caabudnay masiixiinta ay caabudaan ilaah adiga ay caabudaa daamusan tahay isku ilaah ma aha way kala duwan yihiin waayo kaaga wuxuu ku jecel yahay oo kaliya marka shuqul wanaagsan aad qabanaysid laakiin markaan shuqul wanaagsan qabanaynin wuu ku neceb yahay macnaheedu tahay marka u dagaalamaysa isagana aad badan ayuu ku jecel yahay laakiin ilaahay dhinacan kaleeto wuxuu ku leeyahay adigo ima dhimanaysa adiga anaa nafsadeeda kuu bixinay adiga waa kala duwanaasho aad u kala duwan marka ilaah anaga ana caabudno waa ilaah asaga dhan jacayl miiran ah waa ilaah raba dadkiisa inay wad badbaadaan waa ilaah dadkiisa isku muujiya la hadla ma artay wax walba wanaagsan u qabta waa ilaahaas ku badbaadin kara badbaadadiisana ee ku timaado hab asaga uu ku soo qorsheeyo habka isku talaabada marka ilaah anaga ana caabudno masiixiinta hadaan nahay iyo ilaah muslimka ay caabudaan waa kala duwan yihiin waa laba kala fog sida awadeed go-aanka daas kale ilaahay ay rabtaa inaa caabudo ma ilaahan wanaagsan ee jaceylka ah ma ilaah wanaagsan ee raba ma artay inaad dadka dhan jannada wada yimaadaan mise waxaa caabudaysaa mid kale ta kasoo horjeedkiisa ah maya waa inaa caabudaa ilaaha dhabta ah ilaaha ku jecel ilaaha raba inaad badbaado ilaaha dunidan ku keenay adigoon imaanin kusii jeclaadayba walaalayaal cashirkeenii ama mawduuceenii ku saabsanaa ilaaha muslimka ay caabudaan ilaaha masiixiinta ay caabudaan ma isku mid baa intaan kusoo gabgabaynaya jawaabtana waxay ahayd isku ilaah ma caabudno masiixiinta iyo muslimka isku ilaah ma caabudaan kulanti kaleeto oo xiisla ayaan noo rajaynayaa su-aalo kaleetona aan ka jawaabi doono waa iman doonaan oo arrimaha noocan oo kaleeto ku saabsan aad baa umahadsantihiin daawashada ay daawateen rabbiga idin baraka dhammaantiinba waxaan ugu soo gabgabeynayaa aan kusoo xirayaa duco gaaban aabbo ada mahad dhamaanta iskale kaaga mahad celinaya waqti wanaagsan halkaan ku qaadanay rabbiyo intaan ku garanaya rabbiyo adig isku muuji intaan ku garanaya rabbiyo qalbiyadooda geli adig inaad tahay kan ayaga wada jecel oo raba inuu wada badbaadiyo kulligoodba kan aabba u wada ah dadko dhan ba inaad tahay isku sheeg rabbiyo si kulligood u badbaadaan oo jannada u yimaadaan rabbiyo intii caawa ku maqashay rabbiyo oo maanta ku maqashay hadalkaaga maqashay rabbiyo waxaan kaa baryaa inay ku jawaabaan oo yiraahdaan adigaan rabnaa inaan ku raacno ilaah nolol wanaagsan ee badbaadiyaha koonka ah aabbo aabaheena jannado aabaheena nabadoo nabadaada wax ka sheegsaraysaa qalbiyadeena imaankeena ku dhowrta rabbigeena ciise masiix intaas waxaan ku baryaa magaca badbaadiyaheena sayidkeena ciise masiix aamiin aamiin nabad baan kaga tagayaa walaalahay badan dhammaantiinba nabad badan baan kaga tagayaa nabad oo ma aragtay ka timaada rabbi ciise masiix oo aan dhammaystir lahayn oo buux dhaafta ayaan kaga tagayaa kulligiinaba nabada hela kulligiinaba in jesus mighty name aamiin nabada